duulista iyo hawada gudoomiyaha qurbajooga Jamhuuriyadda Soomaaliland Mr. Dayax Weerar xildhibaanka Araale oo xildhibaanada imika dhammaan madaxda iyo marti sharafta kaleba waxaan ku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh bacda salaan haddii aan ku hadlo malaa afka maamulayaasha madaarada Jamhuuriyadda Soomaaliland waxaan jecelahay anigoo matalayo oo magacoodii ku hadlaya waxaan jecelahay marka koobaad in wasiirkeenii horena mid yiraahdo wasiirka cusubna dawlaha cusubna mid yiraahdo Allahumma shaqaale weynahana kalmadoon inaan yiraahdo sida la wada socono wasiirkii hore wasaaradda duulista iyo hawada wasiir dawlihii wasaaradda duulista iyo hawada Axmed Nuur Faahiye qof kasto oo shaqaale ah oo madaarka iyo wasaaradda iyo madaarada Jamhuuriyadda Soomaaliland oo dhan ka hawlgala waan qof walba uu dareemi karayaa qiimihii iyo sharafkii iyo karaamadii uu inaga mudnaa baan jecelahay qofka bilaadanka mas'uula marka xil loo dhiibo qofku xilka laba buu ka dhaxladaa qofkaas isagoo la karaahsanayo oo Allahumma salli ala mashaqaaluhu si habaarayoon inuu Ilaahay bay naga kaxeeyay iyo qof la jecel yahay oo loo buseelay oo Allahumma salli ala bedelkiisa ay shaqaaluhu ka warwaraan waxaan qoraynaa madaarada Jamhuuriyadda Soomaaliland hadaan nahay in Allahumma salli ala Muhammad Axmed Nuur Faahiye bahdi iyo feeshkii madaarada Jamhuuriyadda Soomaaliland oo dhami in qalbigiisa wanaagsanaa niyadiisa furnayd kala jecelaantii shaqaale weynaha wasaaradda duulista iyo hawada mid ay tabi doonaan oo Allahumma salli ala Muhammad ay xasuusan doonaan oo qalbiyada iyo qulubaha dhamaan shaqaalaha oo dhamid ku suntan in ay tahay baan qoraynaa qof wanaag ku sifoobayno habaanu halkaan ka cadeynaa wasiir dawlaha cusub isagana sida la sheegay waxaanu jecelahay wanaagaas aanu ku sheegnay wasiir dawlaha cusub in adiguna insha Allah aanu kala kulmi doono xantu shaqaaluhu dadku inta wala soo xantaayo waxa la yiraahdaa markuu wasiiraba la bedelo shaqaalaha iyaga ama wasiir cusub yimaado wala yara falanqeeya wasiir waxa la yiraahdaa yaqaanay waa qof caynkeeya waa qof sidee wala siyar falanqeeyna waxaanu ku sheegaynaa adina dadkii aqoonta ku lahaay aanu wareysanay in ay xanta fiican ay nooga ka keenaan yiraahdeen wasiirkaas waa noocaas mudakara insha Allah inaan wada shaqeyno oo Allah adigana mudakarnimadaas iyo odaynimada lagu sheegay inaan kugu garab istaagnaano kugu soo dhaweyno ayaan iyadana taana aanu ballan qaadaynaa aanu kala kulmi doono wasiir madaarka kale soo la socota madaarka caasimadda Cigaal International Airport waa madaarka caasimadda maanta ama Soomaaliland ugu ballaaran diyaaradaha ka shaqeeya iyo waxyaha ka hawlgala kulli sida buuga xil wareejinta ku taalo ayaad ku arki doontaa waxa ka shaqeeya 6 waxyood oo bareefada waxaana kale oo ka shaqeeya 10 diyaaradood oo iska juwalaya oo kuwa aan charteriska ahayna diyaaradaha caadiga u yimaadeen iska juwalka waa markii koowaad ama taariikhda markii ugu horeysay ay 3 diyaaradood ee waxa afka qalaad loo yaqaano international flight carriers ay madaarka caasimadda Cigaal International ay ka hawlgalaan sida Fly Dubai Ethiopian Airlines iyo Air Djibouti waa markii koowaad ee 3 diyaaradood oo dal ay leeyihiin ay soo aaminaan in madaarkeena caasimadda Cigaal International Airport ka shaqeeyaan waxa iyaduna dhawaan bilaabi doonta oo ku afreyn doonta oo aan nasiib u yeelatay ku soo dhaweysho diyaaradda Al Arabiya oo iyaduna dhawaan bilaabi doonta taasi waxay ka marqaati kacaysaa in aad timi wasaarad dhisan oo laga soo shaqeeyay oo Allahumma salli ala taab iyo xoogba iyaduna uu galay oo wasiiradii kala dambeeyay ka soo kala horeeyay ay ka soo shaqeeyeen insha Allah wadagu inaad halka maanta ay taagan tahay aad ka sii anba qaadi doonto oo Allahumma salli ala Muhammad sideedaba xilalka iyo mas'uuliyadu waa qori isku dhiib maalinba ninba mas'uuliyada iyo xilka haya marka waxaan jecelahay adiguna meel fiican bay maraysaa halkaas inaad adiguna ka sii qaadi doonto oo aad ka sii waajibkaaga aad ka sii gudan doonto hadalka badin maayo waanu ku soo dhaweynaa wasiir waa si qalbi furan waxaanu ballan qaadaynaa madaarka caasimadda inuu shaqaalihiisu si qalbi furan iyo niyad furana uu kula shaqeeyo wixii awoodayada inaan waxba aanan kala harin wasiir dawlaha cusub horana sida aanu sheegnay isagana waxaan ugu ducaynaynaa Ilaahay meesha meel ka sareeya inuu isagana uu gaarsiiyo oo uu Allahumma salli ala Muhammad qaranka mas'uuliyadii uu shaqeynayay mid kastii sareyso inuu sii qabto una sii shaqeeyo. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.